magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta waxa lagu qabtay kulan looga hadlayay sugidda amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama dalka ay ka bilowdeen arrimaha doorashooyinka kulankan uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa waxa ka qayb galay saraakiisha ciidamada militariga booliska iyo nabad sugidda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba saraakiil ka socotay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM shirkan ayaa diiradda lagu saaray xaqiijinta amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashada ee magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe ee ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale kulankan ayaa looga hadlay arrimaha ku aadan dardargelinta howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka soconaya deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya markii kulanka uu soo ilaaday taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo goobjoog ka ah kulanka ayaa warfidiyeenka la wadaagay qodobada ay diiradda ku saareen shirkan maanta uga qabsoomay xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa shir iskugu yimid wafdi ka socda AMISOM SNA maamul Koonfur Galbeed oo gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed mudane Fiqi taasoo looga hadlayay dardargelinta amniga Koonfur Galbeed isku xirka SNA iyo AMISOM iyo sidii amniga doorashooyinka Koonfur Galbeed ka dhacay mustaqbalka soo socda iyo haddaba loo sugi lahaa isla markaas waxa la gorfeeyay hawlahaas baaxadda leh dhammaanna waa la isku afgartay waxaana la go'aansaday in laga wada hortago si isku mid ah noocyada ciidamada kala duwan AMISOM SNA booliiska nabad sugidda iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada inay iska kaashadaan hawlaha amniga si loo hormariyo amniga iyo badqabka shacabka Koonfur Galbeed isla markaas waxa la gaaray go'aanadii ugu dambeeyay ee ah in la dardargeliyo hawlaha amniga Koonfur Galbeed laga bilaabo saacadana hawshaas waa lagu dhex jiraa waana socotaa haddii aan lahayd amniga gudaha magaalada iyo in la bacsado shabaab meel kasta uu joogo hareeraha Baydhabo meel kasta insha Allah arintaas waa lagu guuleystay waan la meel mariyay waana socon doontaa insha Allah shacabka Koonfur Galbeedna waxaan ka codsanayaa inay barbar istaagaan ama gacan siiyaan ciidamada amniga ka shaqeynaya si loo sugo amnigooda هذا علي أحمد VOS TV مقالة مقدشو